farxad weyn noo ah in aan ku sagootinayno kuna soo dhaweynayno safiirka dawladda Sweden u fadhiya Soomaaliya Ambassador Mikael Limvo oo ah booqashadii ugu horeysay oo habeen uu nala joogo halkan Kismaayo aad bay noo farxad gelinaysaa waana safiirka ugu horeeyay marka laga tago kan Ethiopia nala joogay habeen oo Western waxaan u maleynayaa inay wada cusub noqon doonto oo furta waxayna calaamad u tahay nabadgelyada ka soo cusboonaanaysa magaalada Kismaayo iyo Jubbaland in general waxyaalo badan baynu ka hadalnay maanta asagay madaxweynuhu ka wada hadleen waxaana ugu muhiimsanaa arinta New Deal-ka hiigsiga 2016 arinta ciidamada iyo security isku dhafkooda arinta ku saabsan baarlamaanka Jubbaland xiriirka wanaagsan ee naga dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladaha memberka federaalka inaha soo dhan baa laga wada hadlay intii laga wada hadalay si wanaagsan ayaa la sugu afgartay Sweden waxay aad nooga caawintaa meelo badan waxay ka tahay qayb hay'adan SSF la dhahayo ee caawinta aad u caawinta Somali Stability Fund dawladda Jubbaland qaybaheeda wasaaradda maaliyadda ama institutional building oo dhan waxay caawintaa isbitaalka guud ee Kismaayo waxay caawintaa Red Cross-ka waxayna lacag badan ku bixisaa ayadana sidoo kale AMISOM marka waa partner aad muhiim noogu ah anaga sidaas aanu maanta u soo dhaweynayna waxaan ku gudbinayaa safiirka kelmada inuu yiraahdo asagan. Thank you very much. Thank you, Minister, and Minister of Planning as well. And I've had a very good 2 days here. I spent 2 days in Kismaayo, have been able to see much of the town and the port, the General Hospital, and then also had discussions together with Minister of Planning and Minister of State for the Presidency, and now also Leader Madobe. Time very well spent. I was also happy to come on the occasion when the Prime Minister from Mogadishu was here as well. To come up with a constructive solution as well to the motion in the federal parliament, and I think there's a good solution there with a committee to be set up. I think that's something which needs to be given space, and also very happy to have seen the drafting committee of the constitution doing very important work in a short space of time. So all in all, very happy with my 2 days here, and Sweden is happy to try to continue to support the building of institutions through the Somalia Stability Fund, but also through other means as well. So thank you very much, and thanks for hosting, and we'll come back soon. Thank you. Thank you very much.